kulanti wacan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay xaaladda Falastiin iyo sidoo kale Israa'iil u dhaxeeya waxaanu eegi doonaa awoodda ay leedahay Xamaas in ay ku burburiso Israa'iil barakac xoogan oo ka soconaya iyo sidoo kale wararkii quseeyay dhinaca gantaaladii ugu dambeeyay ee labada dhinac ay isweydaarsadeen haddaba intaanu barnaamijka guda galin fadlan subscribe saar like saar share gareey warbixintani aynu ku horumarno ciidamada difaaca Israa'iil ee loo soo gaabiyo magacoodii IDF ayaa waxa ay soo sheegayaan in 3 gantaal laga soo tuuray dhanka Suuriya kuwaasi oo ku aadanaa dhinaca Israa'iil qoraal ay soo dhigeen barta Twitter-ka ay ku leeyihiin ayay ciidamadu ay ku sheegeen in mid ka mid ah gantaalada uu ku dhacay Suuriya iyadoo aan bixin faahfaahin dheeraad ah warbaahinta Israa'iil ayaa ku warantay in 2 gantaal ay kale ay ku dhaceen dhul banaan iyadoo aan la diiwaan galin wax dhaawac ah macada cid ka dambeysay gantaaladani dagaalka u dhaxeeya Falastiiniyiinta iyo ciidamada amniga Israa'iil ayaa hadda ku fiday daanta galbeed iyadoo la soo sheegayo in 10 Falastiiniyiin ay dhinteen qaar ka mid ah isweydaarsigii ugu cuslaa ee isweydaarsadaan mintidiinta Gaza iyo sidoo kale Israa'iil ayaa la soo sheegay wadahadalada xoogan oo u dhexdhexaadiyaal caalami ah ay ku jiraan ayaa lagu soo waramayaa in ay socdaan ugu yaraan 120 qof ayaa lagu dilay Gaza halka 8 lagu dilay Israa'iil tan iyo dagaalka markii uu bilowday Isniintii tagtay warbaahinta wadankaasi ayaa waxa ay ku soo waramaysaa in Israa'iil khasaare xoogan uu ka soo gaaray gantaalada ay tuurayeen mintidiinta kooxda ka dagaalanta dhinaca Gaza khasaarahaasi oo dhinaca dhaqaalaha taabtay 160 milyan oo dollarka Mareykanka ayaa la soo sheegayaa in khasaaruhu uu gaarayo dawladda Masar iyo sidoo kale Mareykanka ayaa ka mid ah wufuudda caalamiga ah ee iyagu labada dhinac dhexdhexaadanaysa wafdi ka socda Mareykanka ayaa waxa ay tagi doonaan dhinaca Israa'iil si ay ugu soo qanciyaan in xabadda la joojiyo halka Masarna ay qaabishan tahay inay tagto dhinaca iyo jiza Gaza halkaasi oo ay kooxaha dagaalamaya ay kala hadli doonto sidii xal waara loogu heli lahaa dagaalka dadka rayidka ay ku dhamaanayaan maalmihii ugu dambeysay qalalahaasi ayaa waxa uu ahaa mid ku sii baahaya dhinaca daanta galbeed shalay oo Jimco ahayd waxaa la soo warinayay in ay jirtay isku dhacyo ka dhacay magaalooyin dhowr ah Nablus iyo sidoo kale magaalada Qaliil ay ku jiraan halkaasi oo ay rabshado ay ku dhexmareen ciidamada Israa'iil iyo sidoo kale dhalinyaro Falastiiniyiin ah oo ka soo horjeeda awoodda ay Yuhuuddu ay shacabka ay u adeegsanayaan haddaba awoodda iyo sidoo kale hubka Xamaas ay haysato awood ma u leeyahay in ay ka hortagaan amaba ay meesha ay ka saaraan awoodda Israa'iil inkastoo khasaare isugu jira dhimasho iyo burbur iyo dhibaato ay ka soo gaartay labada dhinacba cadaawadaasi xoogeysanaysa ee u dhaxaysa ururada Falastiiniyiinta ee ku sugan Gaza iyo militariga Israa'iil haddana farqiga awoodeed ee labada dhinac ayaa ah mid aad u weyn Israa'iil ayaa si xad dhaaf ah uga awood badan Falastiiniyiinta waxaana ciidamadeeda cirka diyaaradaheeda uusan duuliyaha saarnayn iyo hanaankooda sirdoonka ay sahlayaan in ay fuliyaan duqeymo badan oo ka dhana Gaza waxay Israa'iil ay ku adkeysanaysaa in weerarada ay qaado ay yihiin kuwa xakamaysan oo lala beegsado meelo lagu tuhmayo in loo isticmaalo dana ciidan laakiin saameynta gaaraysa dadweynaha iyo sida ay Xamaas iyo kooxaha kaleba uga hoosgabaadayaan dhismayaasha dadka rayidka ay ku jiraan ayaa sababaysa in ay suurtagal ay noqon weyso in laga hortago khasaaraha gaaraya shacabka Xamaas iyo sidoo kale kooxda Islamic Jihad inkastoo ay yihiin kuwo ka awood yar Israa'iil haddana waxa ay haystaan hub ku filan in ay ku weeraraan Israa'iil durbaba waxay isku dayeen isticmaalka xeelado kala duwan qalabka difaaca Israa'iil waxa uu dhulka soo dhigay drone ay suurtagal tahay in ay hubaysnayd taasoo isku dayeysay in ay Gaza uga tallaawdo dhinaca Israa'iil afayeen u hadlay militariga Israa'iilna waxa uu sheegay in garab ka tirsan Xamaas ay isku dayeen in ay u dusaan Israa'iil iyagoo sii maraya dhuumo dhulka hoostoodii ah iyagoo ka baxaya dhinaca koonfureed ee marinka Gaza militariga Israa'iil ayay u muuqataa in ay haysteen digniino la sii gaarsiiyay oo ku saabsanaa arintani sida uu sheegay afayeenka waxaana uu suurtagashay in ay dhuumahaasi ay xiraan
laakiin hubka kaas aad uga awood badan ugana saameynta badan ee ay falastiiniyiintu haystaan waa madaafiicda goobaha dagaalka loo adeegsado oo noocyo kala duwan leh. waxauu kuwaasi lagu tuuri karaa dhulka iyadoo lagu bartilmaameysanayo xarumaha ciidamada isla dhulka ah. qaar ka mid ah gantaaladaasi iyo kuwo kale oo lagu riday qalabka lidka taangiyada oo loo adeegsaday maalmihii lasoo dhaafay ayaa la aaminsan yahay in falastiiniyiinta loo gudbiyey iyadoo loo sii marinayo dhuumo dhulka hoostiisa ah oo ku hoos yaala gacanka Sinai ee dalka Masar. hase yeeshee Xamaas iyo kooxda Islaamic Jihad ayaa gudaha Gaza ku samaysay hubka iyagoo ku farsameeya warshado la qariyay oo ku yaala meelo ka mid ah marinka Gaza laftiisa. khubaro reer Israa'iila iyo kuwo caalamiya waxa ay rumaysan yihiin in saynisyahano u dhashay Iiraan ay gacan weyn ay ka geysanayaan dhismaha warshadaasi lagu sameeyo hubka. sida Israa'iil ay ku andacotay duqeymaheedii waxay inta badan ay ku beegsataa goobaha lagu warshadeeyo hubka. suurtagal ma ahan in la qiyaaso tirada gantaalada u kaysan ururka Xamaas, waxaase hubaal ah inay haystaan hub fara badan oo tiradoodu ay tiiradoodii meelo badan ama meelo kala duwan ay gaarayso. sida cad militariga Israa'iil waxa ay haystaan qiyaastoodii u gaarka ah oo aysan dooneynin in ay warbaahinta la wadaagaan. afhayeenadoodu waxa ay sheegaan oo kaliya in Xamaas ay dagaalka noocan oo kala iyo tuurista gantaalada sii wadi karaan waqti dheer. gantaalada ay falastiiniyiintu tuuraan ilaa iyo hadda kama muuqato in ay yihiin kuwo cusub marka la eego sida ay u nashqadaysan yihiin, balse qiimeynta guud ee lagu sameeyey waxa ay qeexaysaa in ay kordhiyeen awoodooda iyo qaraxyada ay sababi karaan. walow magacyada iyo nashqadaha gantaalada qaar ay jahwareer keeni karaan, Xamaas waxa ay soo hindisay gantaalo badan oo kuwa ridada gaaban ah sida midka loo yaqaano Qassam oo gaari kara ilaa 10 kilomitir oo u dhiganta 6 mayl, iyo mid la yiraahdo Qudus 101 tiiradiisu ay gaarayso ilaa 16 kilomitir, kuwaasoo lagu sii xoojiyay qalabka Grad loo yaqaano oo gaarsiiya ilaa 55 kilomitir, iyo Siji oo 55 mitir amaba 55 kilomitir gaarsiinaya gantaalada. qalabkan waxaa la aaminsan yahay in ay iyagu ay soo hindiseen islamarkaana u adeegsadeen in ay ku fogeeyaan gantaalada ridada gaaban leh ee lagu soo kordhinayo dab dheeri ah. laakiin Xamaas waxa ay sidoo kale adeegsataa gantaalo nooca ridada dheer ah sida M75 oo gaari kara ilaa 75 kilomitir, Fajr oo gaari kara ilaa 100 kilomitir, iyo R oo gaari kara waa R160 kaasi oo gaari kara ilaa 120 kilomitir, iyo xoogaa M320S oo gaaraya masaafadan 200 kilomitir. sidaas darteed waa ay caddahay in Xamaas ay haysato hub lagu garaaci karo magaalooyinka Qudus iyo Tel Aviv labadaba, iyo in ay halis gelin karaan guud ahaan marinada xeebta oo ay degan yihiin tirada ugu badan ee shacabka reer Israa'iil ayna ku yaalaan kaabayaasha ugu muhiimsan. taliska militariga Israa'iil ayaa sheegay in gantaalada tiradoodu ay gaarayso 1000 ee laga soo tuuray 3 maalmood ee lasoo dhaafay ay 200 oo ka mid ah ay ka gaabiyeen bartilmaameedkii loo waday ee laga soo hagay dhinaca Gaza, sababtuna ay u badan tahay in ay tahay gantaalada gudaha lagu farsameeyo oo aan tayo wanaagsan lahayn. saraakiisha dhinaca difaaca Israa'iil ayaa sidoo kale sheegay in 90% ka mid ah gantaaladii lagu soo tuuray uu qabtay qalabkoodii difaaca hawada ee loo yaqaano Iron Dome. hase yeeshee wararku waxa ay sheegayaan in qalabka difaacayay hawada magaalada Ashkelon uu mar shaqayn waayay cilad farsamo awgeeda, taasoo meesha ka saartay in uu guto shaqadii loo igmaday, balse micnaheedu aysan ahayn in gantaalada ay awoodoodu ay ku dhaafeen. si loo qabto gantaalada lasoo tuuro waxaa jira dhowr tallaabo oo xadidan: in loo diro qalabka lidka gantaalada, in la duqeeyo keydka gantaaladaasi iyo warshadaha lagu sameeyo, in la sameeyo howlgal dhinaca dhulka ah oo dib loogu riixayo aagga laga soo tuuro gantaaladaasi oo la geeyo meelo aysan masaafadoodii soo gaaraynin bartilmaameedka. tallaabadan ma suurtoobi karto marka loo eego xaaladda taagan. falastiiniyiintu ma lahan meel kale oo ay aadaan, waxaase suurtagal ah in la fuliyo howlgal dhinaca dhulka ah oo lagu caburiyo gantaalada kooxuhu ay soo ridayaan. laakiin sida uu muujiyey howlgalkii militari ee Israa'iil ay ka fulisay Gaza sanadkii 2014 waa in la eego khasaaraha soo gaaraya dadka. intii uu socday howlgalkaasi waxaa lagu dilay
waa 2251 Falastiiniyiin ah oo ay ku jiraan 1462 rayid ah, halka dhinaca Israa'iil ay ka dhinteen 67 askari iyo 6 shacab ah. Tuurista gantaalada ee dib u soo noqotay ee duqeymaha looga jawaabo ma ahan kuwa laba dhinac midna horumar gaarsiinaya. Waxaa laga yaabaa kaliya in ay socdaan inta wareeg kale laga gaarayo. Dad badan waxa ay ku doodayaan in xiisada ka dhalatay Qudus ay sabab ay u tahay qalalaasahan soo cusboonaaday, taasoo astaan kale u ah in cadaawadda Israa'iil iyo Falastiin aan weligeeda la iska indhatiri karin.